بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سو دhowaad walaalaha qaaliga ee khayrka jecel ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh mar kale isu kan soo celiyey alxamdu lilaahi xamdan kahiiran dayiban mubaarakan fiih حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله دائما وابدا الحمد لله شكر لله soo dhowaada walaalaha qaaliga ee khayrka jecel maanta waxaynii wadaa walaalayaal qisas laga arkay aayatul kursi iyo maasha allah aayatul kursi cajaa'ibta ay leedahay walaalaha akhristay iyo farxadaha iyo khayraadka kala kulmeen dhibaatadii markii hore haysatay sida ilaahay subxaana watacaala markay ugu tageen ilaahay uu ku siiyey waxyaalihii ay ku heleen maasha allah ka faa'iidaysta walaalaha qaaliga ah layg fara badan nasaara walaalo badan si ay u gaaraan uga faa'iidaysta walaalaha qaaliga ah soo dhowaada axbaabi aayatul kursi waa aayad cadiim ah waa aayadda qur-aanka kariimka ugu weyn وآيات أدي آد أفضل بدو ولا قاليجا أتكارها دن كسو أرورتي ولا قاليجا هدي أي تهي أتكار الصباح مساء إلى هيك وحف دنا يصبح هذا آخر ستو قلبك معنيه هذا آخر ستر إلى صبح ستو إلى هي سبحانه وتعالى وحف دنا يو هبينك مركاسي حنيسو إلى هيك وحف دنا يو إلا أكسب حيسنا سو هذا آخر ستو إن سلاد كدب هذا آخر ستو إلى هي سبحانه وتعالى جنوي كسبوا جينا يو سلاد كستو واجب قلاش هذا آخر ستو وحكوه لسه جند إلى هي سبحانه وتعالى سيد النبي عليه الصلاة والسلام كسوغن آية الكرسي وآية عظيمة إلهي سبحانه وتعالى هذا آخر ستوك وعافنيا إلهي سبحانه وتعالى بلا يدك هذا طبنيا ما شاء الله تبارك الرحمن أكفى إيدي سنة أنا نشينو كدبخنو نفتي دي نفتينو كبورنا يا ولا خالق أسود وهذا وحاجو ذكرنا قصصكي أنا أنت تقصو دياري آية الكرسي قصة ugu horeysa walaalaha qaaliga waxa ka sheekeeyay sheekhan wuxuu yiraahday waxa jira aaba waayeel ah aabaha wuxuu lahaa wiilkiisa indhaha ayaa ka dhacay wiilkii yarka ahaa kadib sanado badan ayuu xanuunsanaa wiilka aabaha ayaa wuxuu u tagay sheekh si kastee dhakhaatiir walba iyo meel walba waa lala maray markii la soo daalay ayuu sheekh u tagay wuxuuna ku yiraahday wiilkayga wuu xanuunsan yahay wuxuu ku yiraahday wiilkaaga waxa ku daweysaa aayatul kursi kadib aabihii wuxuu bilaabay inuu maalin dhan ku akhrinayo wiilkiisa aayatul kursi aabihii asagoo xanuunsanaa balse ismuusan ogeynin oo macnii wiilka markuu ku akhrinayay aayatul kursiga asaga waxa jirkiisa ku jira ma uusan garanaynin aabihii waxaa la yiraahday markuu arkay wiilkiisa inuu ilaahay subxaana watacaala indhihii ugu furay oo aayatul kursi maalidhan uu ku akhrinayay ilaahay subxaana watacaala uga dulqaaday xanuunkii aabihii asagana wuxuu go'aansaday inuu akhriyo aayatul kursi kadib maalin kale ayuu aad iyo aad ugu celceliyay ilaa habeenkii buu ku celcelinayay kadib wuu seexday riyadii ayuu wuxuu ku arkay aabihii in lagu leeyahay aayatul kursi ha joojinin waad ku caafimaadaysaa aabihii subaxii markii la gaaray aayatul kursi ayuu sii bilaabay kadibna matagay dhiig badaan ayuu matagayay aabaha wax cudura lagama helin markii isbitaalada la geeyay walaalaha qaaliga ah balse markuu aayatul kursi akhriyaba matag dhiig ah ayuu matagayay markii uu musqusha galana gadaal waxaa ka socday dhiig ayaa ka socday kadib waxaa dhacday wiilkii yarka ahaa wuu fiicnaado indhihii way u furmeen laakiin mar walba waa lagu akhrinaya qur'aanka kadib wiilkii yarka ahaa baa jin ka dhex hadlay oo jin baa ka dhex qayliyey waxayna dhaheen joojiya aayatul kursi si aabaha uu uga joogsado dhiigga si dhiigga uu gadaal uga joogsado gadaal iyo horeyba aabaha markuu matagana dhiig buu matagaya musqusha hadduu galana dhiig waa musqusha macnihii gadaal ka imaanayay kadib wiilkii yarka ahaa baa jin ka dhex qayliyey wuxuu yiraahday joojiya aayatul kursi aabihii wuxuu yiraahday maya anoo matagaya ayaan sii wadayaa kadib waxaa dhacday aabihii mar walba wuu sii akhrinayay waana lagu dul akhrinayay wiilkii yarkaa sidoo kale waa lagu dul akhrinayay aabihii waxaa gadaal ka soo baxay 4 mas mid qaar cagaar bay ahaayeen qaarna caddaan bay ahaayeen kadib aabihii waxa galay caafimaad cajiib ah nafis xoog ayaa aabihii helay 20 sano uusan arkin 20 sano ka hor siduu ahaan jiray markuu xoog lahaa macnihii caafimaadka qabay inta wuu xanuunsanaa balse asaga ismuusa garanay walaalaha qaaliga ah aabihii tan iyo maalinkii ma uusa joojin aayatul kursi reerkii way fiicnaadeen oo aabihii wuu fiicnaaday wiilkii yarka ahaa indhihiisi way u fiicnaadeen waxaasoo dhan waxay ahaayeen jiman
reerka haystay walaalaha qaaliga ah subxaan allah marka maasha allah barnaamijka cajiibka walaalaha qaaliga ah sheekh baa ka sheekeeyey marka waa ujeedaa walaalaha qaaliga aayatul kursi ma ujeedaa walaalaha qaaliga ah lambar badan maalin dhan habeen iyo maalin maxaa aabaha habeen iyo maalin buu waday wiilkeerkaana maalin dhan baa lagu akhrina walaalaha qaaliga ma ujeedaan marka haddaa rabtid waxyaalaha kugu jiraa waxyaalaha dareemaysid haddaa xanuunsan tahay waxaa jira waxyaalo isqariya marka aayatul kursi badi lambar badan markaa gaarsiiso ilaahay subxaana watacaala wuu ku kashifaya walaalaha qaaligaa sidaa qisada uga jeedno marka aan ka faa'iidaysano qisadana walaalaha qaaligaa gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiraahday waxaan deganaa meel cidla ah guri baan keligee deganaa bay tiraahday habeen baa waxaa maqlay bay tiri albaabka guriga qof taagan waxaan xasuustay bay tiraahday aayatul kursi inaan ku akhriyo waayo hooyaday ayaa waxay i bartay wax walboo laga baqo in lagu akhriyo aayatul kursi waxay tiraahday kadib waan ducaystay bay tiri ilaahay subxaana watacaala ay badbaadiyo daqiiqado gudahood qofkii meeshii wuu ka tegay bay tiri subaxii markii lasoo toosay ayaan raadiyey bay tiraahday arrintii xalay iyo qofkii meesha taagnaa mise wuxuu ahaa joog guryo badan soo dhacay bay tiri balse aniga ilaahay subxaana watacaala wuu idaafiyey waxaan fahansanahay bay tiri ilaahay subxaana watacaala mahad ilaahay baa iskale ثم waxaan fahansanahay inaan akhristay bay tiri aayatul kursi aayadaasna barakadeeda ilaahay subxaana watacaala igu xifdiyey وتيدا والله لها قارقة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شيء قفك هبينك أخرسته إلهي سبحانه وتعالى حفظك أيو كترة أنتو كصب حيسنا يو وإلهي سبحانه وتعالى وحفظنا يا qisadana walaalaha qaaliga aabe ayaa ka sheekay aabaha wuxuu yiri caruurtayda subax kasta waxaan ku dul akhriyaa buu dhahay aroorta hore aayatul kursi wiil kamid ah caruurtayda wuxuu dhahay ayaa wuxuu galay shil baabuur baa wuxuu dhahay gudaha u galay baabuurkii oo dhan wuu burburay buu dhahay laakiin ilmihii yarka ahaa waxba ma gaarin buu dhahay aabahan ilaahay baa mahadan iska leh ilaahay maana badbaadana siiyey barakadana waa aayatul kursi aayatul kursi ilaahay subxaanahu watacaala haddii wuxuu kugu siinayaa inuu kugu ilaalinayo haddaa subaxii akhrisato oo adkaarta subaxii ku dalo ilmaha haddaa ku dul akhriso aad dhahda akhrista oo la akhriso maasha allah tabaaraka raxmaan ujeeda walaalaha qaaliga qisadana walaalaha qaaliga ah wiil baa ka sheekeeyay wiilka wuxuu yidhi muddo badan ayaan habeenkii cabsan jiray kadib waxaa la ii sheegay inaan aayatul kursi akhriyo maadaama cabsi badan iyo gariir badan igu furan yihiin buu dhahay kadib aayatul kursi markaan akhristay waxaan helay hurdo buu dhahay bil gudaheed markii hore waxaan lahaa waswaas cabsi hurdo la'aan balse bil gudaheeda waxaan helay hurdo cajiiba buu dhahay wax walba way iga yaraadeen buu dhahay hurdo fiican baa helay waxaan helay qalbigayga oo degan laabtayda oo ciriirigii ilaah iga dulqaaday maasha allah mujeeda walaalaha qaaliga aayatul kursi waa shifaa ilaahay subxaana watacaala uu kugu xifdinaya waxaa ku dhibaya shayaadiinta iyo waxyaalahaas ilaahay subxaana watacaala uu kaaga dulqaadaya qisadana walaalaha qaaliga ah gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiraahday tuulo ayaa waxaa ka kacay bay tiraahday dab kadibna waxay tiraahday tuuladaas guryihii oo dhan way gubteen ilaa hal guri ma ahane guriga qoys eheludiin ayaa iska lahaa aana gubanin markii la weydiiyey aabihii guriga wuxuu sheegay inuusan maalin walba ka tegin inuu akhriyo aayatul kursi ilaahay subxaanahu watacaala wuu nagu xifdiyey gurigaygii iyo reerkaygiiba ilaahay subxaanahu watacaala wuu igu xifdiyey buu dhahay ujeeda walaalaha qaaliga aayatul kursi haddaa akhrisato maalinkaaga intaa ka subaxaysanayso ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay wuu kugu xifdinayaa markaad galabkii akhrisato intaa ka subaxaysanaysana ilaahay subxaanahu watacaala wuu kugu xifdinayaa walaalaha qaaliga qisadana hooyaa ka sheekaysay daa hooyada waxay tiri dhibaato iyo xanuun daran oo daba dheeraaday ayaa hayay bay tiri waxaa la igula taliyay bay tiri inaan aayatul kursi akhrista bay tiraahday waxaan bilaabay bay tiri maalin walba inaan akhriyo kadib markaan akhriyo inaan ducaystay tiri toddobaadyo markaan waday bay tiri xaaladayda dhan way soo hagaagtay waxay tiri ugu dambayntii ilaahay subxaana watacaala waxaan culays dareemay ilaahay subxaana watacaala waa iga dulqaaday mujeedan walaalaha qaaliga qisada waxaa ka baranayna joogtaynta maamada toddobaadyay wade waxa haddaa waqti siiso maasha allah way kaa yaraanayaan culimada cilaaj waxay dhahaan haddaa dhowr bari wado wixii maalinta koobaad culays baa dareemaysa maalinta labaad sidoo kale waa xanuunsan maalinta saddexaad ayaan markaa wado toddobaadyo markaa wado waxaad dareemaysaa inuu wixii daciifeen baa dareemaysa walaalaha qaaliga kadibna way kaa tegayaan marka maasha allah ka faa'iidaysa walaalaha qaaliga qisadan walaalaha qaaliga
qisadana walaalaha qaaliga nin baa ka sheekeeyey ninka wuxuu yidhi dhibaatooyin badan ayaan la kulmay kadib waxaan ogaaday buu dhahay waxyaalo inay igu dhaceen buu dhahay sida xasad oo kale cudurrada ruuxiga il oo kale kadib waxaan bilaabay buu dhahay inaan akhristo salaad walba gadaasheeda wax badan inaan akhristo aayatul kursi mar walba wuxuu dhahay si tartiib ah ayaa u dareemaya caafimaadkii si tartiiba ayaa u dareemaya inaan wax walba ii fududaanayaan si tartiiba ayaa u dareemaya deganaasho wuxuu dhahay kadib wax walba way hagaageen hadday tahay arsaaqadihii hadday ahaa lahayeen buu dhahay caafimaadka jirkayga deganaashii qalbigayga ilaahay subxaana watacaala wuu ii fududeeyey maasha allah mujeeda walaalaha qaaliga marka mar walba waxay ku xiran tahay qofka markuu nafsadiisa cilaajinayo ayuu xanuunku haya walaalaha qaaliga waa ku daweyn kartaa waa ku daweyn kartaa aayatul kursi marka maasha allah waxay rabtaa waqti bay rabtaa walaalaha qaaliga in la gashto qisadana walaalaha qaaliga gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiraahday jaamacad ayaan dhigan jiray bay tiraahday kadib imtixaanka markii la geliyay xoog baa u walwala bay tiraahday kadib waxaan bilaabay inaan aayatul kursi ku celceliyay tiraahday in badan ku celceliyay alxamdulilah imtixaankii baan galay bay tiraahday waxaan helay deganaasho iyo feejignaan iyo faham yani fahmay bay tiraahday su-aalihii kadibna aan ka jawaabay tira horay umaanan lahayn bay tiraahday arrimaha aan dareemay bay tiri wallahi ilaahay baa mahadda iskale uma waxay tira barakada aayatul kursi natiijadaydiina waxay noqotay natiijo kore bay tiraahday maasha allah qisadana walaalaha qaaliga gabar baa ka sheekaysay waxay tiraahday ilmo riyooyin cabsi ah ku riyoon jiray oo mar walba la kulmi jiray ayaa waxaa dhacday hooyadood in lagu yiraahday ku aqri ilmahaaga aayatul kursi hurdada ka hor kadib ilmaha mar walba way sasi jireen mar walba waxay ka sheekayn jireen hurdada waxyaale cabsi ay ku arkaan hooyada waxay tiri 2 maalmood gudahooda waxaa dhacday bay tiraahday in riyooyinkii dhan ay istaageen bay tiraahday gurigiina uu noqday guri degan ilmihiina si fiican ay u seexdeen wajada walaalaha qaaliga ilmaha waa lagu akhriyaa mar walba ilmaha ma dadaali kara walaalaha qaaliga inuu waalidku daba socdaan ma ahane oo ku akhriyaan quraanka intuu ilmuhu ka qaangaaray ama ka aqliyeysanayo ilmuhu macnaheedu ma dadaali karo marka ilmaha lagu akhriyo aayatul kursi sida hooyadan wajada ilmaha dee riyooyin cabsi xanuuno waxaad ku aragto quraanka ilaahay ku akhri quraanka ilaahay wax walba daawo uu ka yahay habeenkiina jawaab la akhrista ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ku xifdinayaa qofka qisadana walaalaha qaaliga nin baa ka sheekay ninka wuxuu yidhi dhibaato dhaqaale ayaa igu dhacday buu dhahay dhibaatadaas oo mar walba joogta ahayd baahi aan dhammaanayn runtii wuxuu yidhaahday kadib waxaan bilaabay buu yidhaahday waxaan mar walba barakada ka qaaday waxaan helno dee baahi mar walba aan dhammaanayn joogta ah kadib waxaan bilaabay in aayatul kursi aad u akhriyo inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala barakada quraanka ilaahay iyo aayada quraanka ilaahay ugu weyn barakadeeda isiyo kadib wuxuu dhahay bil gudaheeda waxaan helay fursado cusub shaqooyin badan baan helay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ii barakeeyey waxyaalaha aan dareemayay oo dhan way ka baxeen buu meesha bay ka baxeen waxyaalihii baraka la'aantii baahidii mar walba joogtada ahayd wixii dhan way tageen buu dhahay aayatul kursi waxay ii noqotay buu dhahaa furaha barakada ayuu dhahay maasha allah wajada walaalaha qaaliga quraanka ilaahay cajaa'ibtaasu leeyahay walaalaha qaaliga muhiimadu waxay tahay inaan ficilkii la imaano ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu inoo sheegay inuuna ajiibayo walaalaha qaaliga haddii aan dadaalno marka muhiimadu waxay tahay inaan anagii dadaalno walaalaha qaaliga marka maasha allah ka faa'iidaysano walaalaha qaaliga khayr iyo farxad baa dhammaantiin idin wada rajaynayaa aayatul kursi waa aayad cadiima waa aayada quraanka kariimka ugu weyn haddii lambaro badan intaa doonta ka akhrisatid mar walba saa rabtid u akhrisatidna mar walba liibaan iyo khayr iyo farxado badan iyo caafimaad iyo deganaansho ayaa kala kulmaysa iyo xifdi markaa ka faa'iidaysano walaalaha qaaliga naftayda naftiina oo ku boorinayaa خير يفرح بيدي رجيني وحي أنخرج نفتي إذا الشيطان بك هذا إلهي سبحانه وتعالى هيدي بدافه وحي أنصحنا فمن الله بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.